Ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Brazil, Ronaldinho, ayaa lagu qabtay dalka Paraguay kadib markii lagu eedeeyay inuu dalkaasi kusoo galay isagoo adeegsanaya baasaboor been abuur ah, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta waddankaasi. Booliska Paraguay ayaa qabtay Ronaldinho iyo walaalkiis xilli ay ku sugnaayeen hotel ku yaala magaalada caasimadda ah ee Asunción. Wasiirka arrimaha gudaha Paraguay ayaa warbaahinta u sheegay in ay haatan weli baaritaan ku wadaan Ronaldinho. Wasiirka wuxuu sidoo kale sheegay in aysan ku khaldanayn qabashada Ronaldinho, balse xaaladdiisa ay kala shaqeynayaan mas'uuliyiintu si loo xaqiijiyo dambiga loo haysto. Bishii July ee sanadkii 2019 waxaa lagu soo waramay in Ronaldinho lagala noqday baasaboorada dalka Brazil iyo Spain kadib markii uu bixin waayay cashuurtii. Waa in aan qadarinaa maadaama uu yahay ciyaartoy caan ah, balse waa in la xushmeeyaa sharciga. Qofka aad rabtid ahaw sharci uu ku qabanayaa, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Paraguay Equvaldes Acevedo. Ronaldinho oo 39 jir ah ayaa 2 jeer loo aqoonsaday ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida. Wuxuu u safray Paraguay si uu u shaabixiyo buug iyo olole uu ugu doodayo in la ilaaliyo xuquuqda carruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ah. Ronaldinho ayaa sanadihii 2004 iyo 2005 ku guuleystay ciyaaryahanka sanadka ee ugu wanaagsan dunida. Waxay xulkiisa qaranka Brazil ku guuleysteen koobkii adduunka ee sanadkii 2002, xilligaasi oo ay Brazil u wada dheeliyeen isaga iyo Ronaldo iyo Rivaldo.